الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله كر الله لا إله إلا الله هي magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa lagu qabtay xus lagu waamuusayo khaliifkii weynaa ee diinta islaamka gaarsiiyay meelo badan oo ka tirsan Soomaaliya Khaliif Axmed Weli kaas oo muddo 57 sano ka hor ku geeriyooday magaalada Muqdisho waxaana xuskan oo 57 sano jirsaday lagu xusay ama lagu qabtay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Xamarweyne halkaas oo la sheegay in Khaliif Axmed Weli uu ahaa dadkii aas-aasay madaarista cilmiga diiniga lagu barto ee degmada Xamarweyne markaas ay caanka ku ahayd horaantii sanadihii 1920 halkaas oo diinta islaamka uu ka faafinayay waxaana Khaliif Axmed Weli dadkii halkaas ay ka soo qayb galay sheegeen inuu kamid ahaa culimada ugu waaweyn ee diinta islaamka magaalada Muqdisho gaar ahaan Xamarweyne soo gaarsiiyay waxaana kamid ahaa lafdhabartii faafinta diinta islaamka dadkii ka soo qayb galay xafladda ayaa ku dheeraaday taariikhda iyo sidoo kale ka sheekeynta waxyaabihii uu caanka ku ahaa Khaliif Axmed Weli oo halkaasi xus iyo xusuus loogu sameeyay waxaana ka soo qayb galay munaasabada culimo waaweyn oo geyga Soomaaliya caan ka ah goobta munaasabada oo ahayd degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir waxaa ku sugnaa sidoo kale awlaadii uu ifka kaga tagay Khaliif Axmed Weli ayagoo sidoo kale halkaasi ka akhriyay ama ka soo jeediyay taariikh iyo xusuus u gaar ah Khaliif Axmed Weli oo halkaasi loogu sameeyay xus waxaana ay sheegeen inuu kamid ahaa dadkii ugu waaweynaa ee diinta islaamka soo gaarsiiyay degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir waxayna sheegeen in Khaliif Axmed Weli uu kamid ahaa culimada suufiyada ee magaalada Muqdisho si weyn lagaga yaqaanay horaantii qarnigii 19aad si lamida waxaa munaasabada soo hambaliyay qaar ka tirsan awlaadiisa oo ku kana lool dunida dacaladeeda waxayna sheegeen ama ay ka hadleen sida ay ugu faraxsan yihiin in xus iyo xusuus loo sameeyo qofkii dunidan inay soo gaaraan wadadeeda mid kamid ahaa oo sidoo kalena kamid ahaa culimadii waaweyneed ee fiditaanka diinta islaamka magaalada Muqdisho qayb weyn ka qaatay xuskan ayaana sanad walba marka la gaaro bishan oo kale waxaa ay ka dhacdaa meelo waaweyn oo ka tirsan Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaana sidoo kale ka soo qayb gala culimo waaweyn oo duruqada suufida kamid ah dadkii halkaasi ka soo jeediyay khudbadaha waxay sidoo kale ku nuuxnuuxsadeen taariikhda iyo waxyaabaha uu gaar ka leeyahay Khaliif Axmed Weli ayagoona sidoo kale sheegay in mararka qaar la arki jiray waxyaabo mucjisaad ah oo uu gaar leeyahay iyo sidoo kale in uu aad ugu sareeyay Quraanka Kariimka ee qowlkii Allah baridiisa oo markaas dadka gaarsiinayo munaasabada ayaa sidoo kale waxaa laga qaaday qasiidooyin kala duwan oo loogu tala galay munaasabada dabaaldega xuska khaliifkii weynaa ee Khaliif Axmed Weli kaas oo 57 sano ka hor dunidan ka xijaabtay culimada ahl sunna wal jamaa ee ku kala dhaqan Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka ayaana hambalyo iyo sidoo kale bogaadin u soo diray munaasabadan ayagoona sheegay in Khaliif Axmed Weli uu yahay mid kamid ah culimada markaasi dariiqada ahl sunna wal jamaa qayb weyn ka qaatay waxayna sidoo kale sheegeen in dadaalkii uu diinta ku bixiyay Khaliif Axmed Weli ay dhashay in ilaa iyo maanta oo geeridiisa laga joogo 57 sano si sanad la ah loo xusuuso
sidoo kalena loo weyneeyo ayagoona dunida dacaladeeda meel kastoo ay joogaan ahlusunna waljamaaca hambalyo iyo bogaadin u soo diray xuskan lagu weyneynayo khaliif axmed deeyaaweli oo culimada dariiqada ahlusunna waljamaaca ku jira kuwooda ugu firfircoonaa horaantii qarnigii 19aad kana qayb qaatay fidinta diinta islaamka. si kastaba khaliif axmed deeyaaweli ayaa ku aasan qabuuraha sheekh suufi ee degmada xamarweyne ee gobolka banaadir waxaana sheekh suufi uu ahaa sheekh ka mid ah culimmadii oo wax ka bartay khaliifka halkan lagu weyneynayo ee axmed deeyaaweli. awlaadiisa iyo sidoo kale dadka ku dhow ayaana sheegay inay diyaar u yihiin in inta ay nool yihiin iyo inta ay sidoo kale firkooda wax ka haray ay weyneyn doonaan ama ay xusi doonaan khaliif axmed deeyaaweli maadaama uu ahaa halgabaa diinta islaamka meel wanaagsan soo gaarsiiyey fidideedana qayb weyn ka qaatay gaar ahaan muqdisho marka la joogo degmada xamarweyne oo halkaasi uu si gooniya kaga suntan yahay ama uu kaga calaamaysan yahay. waa kuwan culimmadii ka soo qayb gashay munaasabadda oo ka taariikheynaya waxaana ka sheegaya khaliif axmed deeyaaweli. alxamdulilah waxaa ka soo qayb galay siyaarada weliga weyn sheekh axmed deeyaaweli oo ahaa khulafada waaweyneed ee sheekh uweys. waxaa halkan ka salaamaa sheekh awees sheekh maxamed axmed deeyaaweli oo jooga london iyo walaalihiis sheekh cabdiraxmaan sheekh bakar iyo walaalahooda dhammaan reer yaaweli kulligood waa salaamaa. siyaarta waxaana wakiil ugu ahay oo u mid sheekh abdicasiis bedelkiisa marka reer yaaweli dhammaan waa salaama insha allah. siyaarta allah idin aqbalo muraadihiina allah salo adduunya akhirataan. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله ما أنت وحن جونا برنامجي وينا ولي إلهي مكرم كأها شيخ أحمد دياولي زيارتي سيان جونا وكمدها خلفاء شيخنا شيخ أويس القادرية وكمدها ذاتك شيخ أويس سوبر باري diin ahaan uu soo barbaariyey tarbiya ahaan uu soo barbaariyey ayuu ka mid ahaa oo diinta sheekh way soo baray walillaahi alxamdu wal minna insha allah maanta waa barnaamijii waad arkaysaan barnaamijii weynidiisa insha allah ilaahay ha ka dhiga xadradan waa xadro lagu maamuusaayo qof waliba diinta uu soo adeegana insha allah saas ayaa isagana loogu khidmaynayaa awlaadiisa iyo ehelkiisa dhammaan waa dadka maanta u heelan inay diinta fidiyaan oo waxay ku taagan yihiin wadadii abkoogooda ayay ku taagan yihiin. waxaa la ziyaaranayaa 56 sano ayay ziyaartiisii kacotaa 1966 ayuu dhintay insha allah ilaa yawmina hada sanad waliba saas ayaa loo ziyaartaa. diriyadiisii awlaadiisa dal iyo dibad joogaanba waxay adeegayaan diinta. karaamadiisa ayaa waxaa ka mid ah inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala yacni ka dhigay daaci weyn oo diinta nashriyo. waxa ugu weyn oo ilaahay dadka uu ku sharafo ama qofka ahlu iimaanka ah ilaahay ku sharafana waxaa ka mid ah iimaanka iyo يعني fidinta diinta. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبتيالذي إذا دمان غير ياولي صغير إيه كبير كوذا وسلامة سلام بقول تمنا أفرت سورة القرآن كعدد ديسة سلام بعد كذا زيارة أبكوجينا حاج أحمد ياولي واقع شيء زيارة مقبول إن شاء الله. إذن كان عمر داري عاف ماذا إله إذن كتوجا أولادنا بارع الله إذن كجيله سلام بعد كذا هدنا وحن سلامة بهذا idaacada maanta noo timid oo ugu horeyso oo noo duubtay ziyaarada xaaji axmed deeyaaweli ayaan u mahad celinaa. idaacadan waxaan leeyahay mas'uulkooda ilaa muwaddifiintooda oo dhan khayr allah wada siiyo dhammaantooda ayagana ilaahay caan ha ka dhigo. sidoo kale waxaa munaasabadda soo hambaliyeeyey cabdiraxmaan yaaweli oo ah mid ka mid ah awlaadii uu ka tegey khaliif axmed dey asagoo ku sugan dalka Britain ee qaaradda Yurub. guud ahaan culimmadii ka soo qayb gashay iyo sidoo kale awlaadiisa ayaa gabagabadii munaasabadda waxay ballan qaadeen inay diyaar u yihiin in marka la gaaro sanad walba xilligan oo kale
ay weyneeyaan munaasabadda sidoo kalena ay ballaarin doonaan markastana diyaar u yihiin inay xusuustaan oo xusaan khaliifkii weynaa ee khaliif Axmed Yaawali maadaama uu ka mid ahaa culimadii ugu waaweyneed ee diinta islaamka fidinteeda caanka ku ahaa al-sunna wal jamaa ayaana gabi ahaan waxay u soo dirtay tahniyad iyo sidoo kale bogaadin ku aadan xuska khaliif Axmed Yaawali